macmiil si aad u beddelato magaca iyo furasreedka kuugu diiwaangashan internetka guryaha iyo xafiisyada ee Hormuud fadlan raac tallaabooyinkan ugu horreyn ku xidho wifi-gaaga dooro qaybta settinga ee taleefankaaga kadibna guji manage router haddii aad isticmaalayso kombiyuutar soo furo browserka kuugu jira sida Chrome, Edge iyo wixii la mida kadibna qaybta sare ee raadinta ku qor IP address-kan 192.168.8.1 dabadeedna riix enter kadib halkan geli username-ka iyo password-ka ku qoran qaybta dambe ee modemka internetkaaga kadibna guji login marka uu kuu soo furmo boggan dooro advanced kadibna ka sii dooro WLAN halkan ku qor magaca cusub ee aad rabto inuu yeesho internetkaagu sidoo kale halkan ku qor password-kaaga cusub ugu dambayn guji apply hambalyo waxaad si rasmi ah u beddelatay magaca iyo furasreedka internetka gurigaaga